wuxuu yiri waqtigayga dhan habeenkii waxa qaada 11 hee oo gabdhood ba habeenkii seexiyaa ku wiil ardayga yimid wuxuu yiri waxaan rabaa Soomaaliya inaan number 1 u noqdo xagga waxbarashada gaar ahaan accounting-ka aad baan la dhacay waxaan isla wiil sidaan oo kala ma jiro mana ana qooma ii soo dhawaaday hoos buu wuxuu igu sheegay wuxuu Soomaaliya rabaa inaan wax u noqdo kow xagga xisaabaadka xisaabaadka iyo waxaas waxa ay sanadkan imtixaankii ma gashaa maxaa akhriso waayay wuxuu yiri macalinka warqado yar oo nasiiyaan akhriye wax kale ma akhriso maya wax buu kale ma akhriso maya haddaan wax kale akhrin maxaa wax ku noqonaysaa wax kale hoos igu sheegay ma aqaan inaan hoos idinku sheegay idinka wuxuu yiri waxaas ka daran baa jiro arrimo badan baa idin sheegaya idinka ma idin sheegay ama soo idinka daaya wuxuu yiri waqtigayga dhan habeenkii waxa qaada 11 hee oo gabdhood ba habeenkii seexiyaa ku marka qofka wax akhriska waaye ee wax seexinaya ya waqtiga meel kale ku baxaa qof waa waqti hayn ma jiro waqti firaaqa waa naga batay ya waa waxa la yaabano garka weyn iyo timaha isku buuxin laahay way gar weyn oo la timaha buuxin laahay marka meelna waa ka buuxdaa meelna waa ka maran tahay noloshaada waxay u baahan tahay isku buuxin marka waa la yaabaa qofku inuu waqtigiisa uu san maareysan kow hadaa rabto inaad wax akhriso horta ujeed yeelo waa ma ujeedada wax akhrinayso hadaan ujeed lahayn akhris ma jiro ciyaaraha waa aragteen oo dhalinyaradu ay jecel yihiin iyada ciyaarta aad loo fiirsanayo aad ay u socoto meel waaday soo kaxaan kuwii kamida taageerayaasha ay goolasha la baxaan ka warrama ciyaarta ma fiirsanayna goolka waa ujeedadu soo ma hayn inkastoo ciyaar yahay markaan idinka haleeyana ay tahay laba bilood dhexdood bambiiro la marinayo waa iska jimicsi laakiin ujeedadu leedahay ujeedadu waa goolkaas la aadayo haddii aadan ujeedo wax u akhrinaysaa iyo jirin maxaa akhrinaysaa wax inta ka guba waa kugu bixiya waxaas maxaa inta kaaga ku cinaya ka laga yaabaa arday inaan arko xilliyada ay dhiganayaan iskuulada iyo jaamacadaha maalinta imtixaanka aad wax u akhriyo حتى فصلوا دي ورسوقل ايوه حسوقل بواق وطن انتاس ان كير هدي يكون بخين لهايان اخرس وقتي انت وقيبيان وهري ميلان غاري لهين لكن waxaa nooga badan wax kale haday waxa la dhahay dadka wax ma akhriyaan iyo dadkii hore anaga waan ardaga ahayn waqtan kala sugu jirnay waqtan haysan ingiriis bay ahaayeen buugan adaan ka sugaya ku kala ka sugaya kuwa kala carabiya waa la kala sugay hal buug baa laga yaabaa in inta galaaska isla akhriyaan oo wareegto hanka u haysa weeye ila wax akhriso wax kugu bixinayo hadaa rabto batana waa laga hadlayay luqad ila barato luqadaada waxa dhisa akhris ka dhisa luqad af Soomaaliga hadda aan rabno ila akhrino ama Carabiga ama Ingiriiska baasha ugu haboon oo ku ibaan karo waa akhris